السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيارتك وصل دوادا cashiradii noo socday af Soomaaliga English markuu fasirayay conversation ka hadda waxaan soo qaadanaa short story ayaan af Soomaaliga ku fasiraynaa insha Allah. Sheekadana waxaa waaye rich man poor man, nin taajir ah nin faqiir ah. Rich man poor man, paper one. Let's go. Chapter 1. A letter from Adam. A letter for Adam. Sorry, a letter warqad for Adam. Min Adam la warqad ku socoto. Adam was like Adam amal waay. Adam. One day maalin maalmaha kamid ah postman nin oo postaale ah ninka postada ka shaqeynaya ayaa la yiraahdaa postman. One day a postman came to my village. Xaafadayda u imaaday. The postman brought me a letter warqad from my son anigayga Saul. La yiraahdo Saul. Is your name Adam? Adi Adam ma lagu dhahaa? The postman asked. Ninka postman ayaa weydiiyay. Yes, Adam ayaa la dhahaa. Wuxuu marka postman I have got a letter waxaan hayn warqad for you. Adiga warqad ayaan ku wada. Postman read the envelope. Envelope waa bashqad. Adam bashqad waxaa ku qoran Adam of the village of Minta. Ninka la yiraahdo Adam ee xaafadda Minta. A letter for me. Ninkii oo duq ayaa yiri Adam a letter for me. Warqad aniga u socotaa. Who is it from? They came out or you came out I asked one with him. وويدنا ninkii postman-ka ahaa. Postman-kan wuxuu ugu jawaabay page-ka kale ayaan adeynaa. Postman look at the envelope. Wuxuu fiiriyay xaashidii envelope bashqad laakiin mar kale isku hubinaya inuu ninka uu isku socday. Farmasiyo waxay ka imaaday farmasiyo. He said he give me the letter warqadda ayuu siiyay and walk away. Wuuna iska tagay. Warqadda ayuu siiyay dhabarkii uu jeediyay. He walk away. Uu tagay. Odayga ayaa warqadda la haray. Marka wuxuu yiri Martha. Islaantiisa ayuu yiri Martha. I called to my wife. Waxaan u yeeray islaantayda. Came here. Kaalay. We have a letter from our son. Waxaan hayaa warqad ka imaatay cunugeena. Saul. Marka Martha ayaa loo yeeray. Iyadii duqeedii waa kana. Martha came out. Martha way soo baxday. And look at the letter. Warqad waxayna fiirisay warqad. She was excited. Ayay u faraxsaneed. Waxay siinaysaa. But she was also worried. Sidoo kale way naxsaneed. Waxay la warqad talow. Ma waxan baa warqadda ka hadlaysa wiilka ku saabsan. Sabax fiican. A letter from Saul. Warqad ka imaatay Saul. She sighed. Is he alive? Monoli. And well ku fiican yahay. I'm going to find a school teacher. Waxaan raadin macalinka iskuulka. He can read the letter. Isaga ayaa warqadda ma akhrin kara. Intaas macnaheedu waxaa waaye duq iyo duqda labada mid wax ma akhrin karaan. There was no school 50 years ago. Ma jirin school 50 sano ka hor. So I cannot read or write. Sidaa darteed mana akhrin karo mana qori karo. I live in small village. Waxaan ku nool xaafad yar. The only work is farming. Shaqada kaliya ana waa tabcasho. Only son anigii kaliya I saw lifted the village 2 years ago. 2 sano ka hor ayuu ka tegay xaafadda. And my 3 daughters saddexdii gabdhoodna are married. Way guursadeen. Saul is making Saul wuxuu sameynayaa a lot of money. Lacag badan in a foreign country. Foreign country waxaa la wadan aan wadanka ahayn. Marka Saul waxaa tusinaysaa inuu aaday wadan aan wadankiisa ahayn. Dibadda marka aabihiis iyo hooyadiis waa u soo diray. Waxaana ka hadlaysaa cashirkan xilliyada hore ee telefoonka way jiray. Xaashiyaha waxa la soo diri jiray. Marka wuxuu dhahay Martha and the school teachers came back. Martha ayaa macalinkii doontay. Waxay tiri anaa u soo yeeray. Martha and the school teacher came back way imaan. Macalinka school. A lot of other people came. Dadka badan isku soo baxay. Nin hebel ah cunugiisa ka usoo dooray. Marka waqti waxay ku saabsan tahay cunugaas ma ku dhacay talo ilaa hadda akhbaartiisa weli lama helin. 2 sano ka hor laga helay.
dad badan kusoo martay. A lot of other people came. Dad kale badan ayaa soo baxay. Everyone wanted to hear my letter. Qof kasta oo raba inuu warqadeeda maqlo ku saabsan. The school teacher opened. Schoolka macalinka ayaa warqadii furay. The envelope bashqadi and read wuuna akhriyay. The letter xaashidii 20 Taylor Street waxa waaye ciwaanka wiilka uu jooga waa 20 Taylor Street meel la dhaho London E19 England 16 March intaas waa address warqada. Wuxuu marka dear father dear father I'm living in London. Waxaan ku noolahay London. I have a job. Waxaan haystaa shaqo in a factory meel oo warshad ah. The work is very hard. Shaqada aad ayay u adag. I often work aniga badan work at night. Waxaan ka shaqeeyaa habeenkii ayaan shaqeeyaa badan. But the pay is good. Pay waxaa la dhahaa lacagta mushaarka ama maalinta lagu siinayo marka shaqada kasoo baxdo lacagta lagu siinayaa pay. I often work at night. Habeenkii ayaan shaqeeyaa. The pay is good. Laakiin inkastoo shaqada adag tahay lacagta mushaarka ka helayo aad ayay u fiican tahay. But the pay is good. I am well. Anigu waan fiicanahay. I live with people. Waxaan la noolaa dad from my country. Dad oo aan isla soo hajirnay oo waddankeena ka imaaday oo inta joogaan London ayaa la noolaa. I'm sending you. Waxaan kuu soo dirayaa £100 lacagta Ingiriiska ayaa la dhahaa pound. £100 in this letter. Xaashidan. This is for you. Tani £100kaas waa adiga and my mother iyo love to you. Jacayl ayaan yahay. And mother's soul. Love to you. Sidoo kale waan ku jeclahay. And mother adiga hooyo aad ayaan £100 I said to the school teacher. Marka warqad waxaa akhrinayay school teacher akhrinayay. Marka waya £100 boqol pound I said to the school teacher. You are wrong. Macalinku ninkii u dhaqo marka waa qaldan tahay. It's a mistake. Waa qalad. Waxa warqad ani muu iska leeyahay waxa waa la soo qalday. No, wuu dhahay marka macalinka school. The school teacher said, I am not wrong. Aniga ma qaldan. It's not a mistake. Qaladna ma aha warqada. Here is the money. Warqada waa tana lacagta. Marka bashqada waxaa lagu soo diray waa sida xawaalad camal waaye. Bashqada marka lagu soo diro xaashi ayaa ku dhex jirta. Xaashidaas ayaa qaadanaysaa waa xaashida meesha ku sawiran. Waxaad la aadaysaa meel la yiraahdo order money. Marka lacagtaas ku soo qaadanaysaa. Marka and he give me a piece of paper. Wuxuu siiyay qayb yar oo xaashi ah tan meesha ku sawiran. What is this? Waxaan maxay tahay? I asked him. A money order. Money order ayaan warqad. Meeshaan xaashidan baa meesha money order la keenaysaa. Waxaa soo qaadan soo xariiqo. The school teacher said, go to Daba. Waxaad aadaa meesha la yiraahdo Daba. Take this money order. Money order marka waa rasiidka xaashida ku jiray envelope bashqad qaad u dhahay to the post office in Dabar. Meeshan tuulo waaye post office ma laha meel heblo oo Dabar la orod ka yaala. The money order is worth. Money order-ga qiimo ayay leedahay £100 euro. The post office official will give you waxay ku siinayaan post official will give you the money. Xaashida ayaad dhiibaysaa adigana waxaa soo qaadanaysaa £100. Marka xaashida waatan waxaa ku sawiran Seoul ama Gimli £100 oo ku qoran. Marka rasiidkaas waa £100. I said again. Madaxa gilgilo £100. I said again. Mar kale ayaan dhahay. Everyone laughed. Qof kasta wuu qoslay. And said wuxuu dhahay Adam you are rich man. Adiga waxaad tahay nin taajir ah. You can buy many things. Waxaad gadan kartaa waxyaalo badan for your farm beertaada and for your house iyo gurigaada. Beertaada iyo guriga waxyaalo badan ayaa usoo gadan kartaa. And I can buy isaga wuxuu dhahay marka and I can buy some food and drink in Japan. Markaan nabarta lacag soo qaato waxaan in soo geli doonaa cunto iyo cabitaan. Going to give a party. Waxaan siin doonaa party xaflad for you all in London. I told my friends.
waxaan u sheegay saaxiibada markay dhahaan adiga lacag badan oo taajir baa tahay gurigaaga iyo beerta wax badan aa usoo gadan kartaa asigana wuxuu ugu jawaabay cunto iyo cabitaan ayaan kuu soo gadayaa xalfadna waan qabanayaa saaxiibadiisu saas u sheegay marka duqa wuxuu aadayaa pageka labaad ayaan pageka ku xiga Martha said Saul is a good son wiilkayga Saul is a good son inuu fiican waay that evening galabkaas the village people took up the money order xaafadda dhan meesha waxay ka hadlaysaa the money order weligood lacag lasoo diray may arkin money iyo lacagteeda ayay ka hadlayaan Martha and I also talk about Martha waa duq islaantiisa Adam islaantiisa waa aniga Marthana waxaan ka hadlaynay about the money lacagta we need money things waxaan u baahannahay waxyaalo badan beerta ayaan waxaan u baahannahay waxyaalo badan oo lacagta aan u baahnayn qarash la'aan baan haysamaan page kale ayaan adeegnaa okay chapter 2 Adam goes to the bar duq Adam aha oo xashidii loo soo diray qaaday oo dabbaar aadaya ayaa tan uga bilaabanaysa suu lacagta kusoo qaatay the next morning subaxii labaad I got up very early subaxii waqti hore ayaan toosay it was dark way madoobay anaa iftiin ma lahayn and everyone was asleep qof kastana wuu jiifay but I was going to the bar aniga waxaan u socdaa the bar marka iyada magaalada meesha tuulada hoos imaado waa marka duqa oo safarkiisa u bilaaban ayaan galaynaa I wash waxaan dhaqay and dress carefully I wash waan qabaystay waan dhaqday and dress carefully si taxaddar leh u labistay I put on my best clothes waxaan xirtay dharkay ugu fiicnaa and I cried my best stick waxaan qaatay ushayda ugu fiicnayd I put the money order carefully xaashidii money order agahayd oo lacagta lagu suqaaya meel fiican gashtay my pocket jeebkayga sorry in my pocket and I said goodbye marada islaanta ayaan waxaan ku dhahay goodbye marada macasalaam I walked 10 miles waxaan socday 10 mayl to the main road jidka weynaa I sit down on first at the main road jidkii weynaa ayaan fariistay baabuur waxaan ku sugayaa and ate my breakfast cuntidiisa hore usoo qaataa marka duqa soo kala breakfast ayaan iska cunay I wait for the bus baska ayaan sugay I wait for 2 hours 2 saacadood ayaan sugay then the bus came baski ayaa imaaday and I got on waana fuulay aka baska soo istaajinayo oo duq ushii soo qaatana ka suudkii soo xirtay marka baska ayuu jidka ku sugayay marka baska jidka u dhaafay ayuu soo kala jidka ku sii sugayay marka baska ayaa soo maray duq hadda soo meesha fadhiya it is a long way to the bar meel fog waaye the bus takes wuxuu qaadanayaa 3 hours baska wuxuu qaadanayaa 3 saacadood oo safar ah I arrived in the bar ayaan gaaray and walked to the post office immediately isla markiiba meeshii lacagtii post office ayaan immediately si dhaqso ah u aad u dhahay xaashida wata marka oo bashqada ugu jirto ilaahay money order I don't even go to the bar weligii badan ama aadi jirin the bar I only know waxaan ka aqaanaa the market suuqa and one shop iyo hal dukaan this is the shop of Rick ninka la yiraahdo Rick dukaankiisa basaan ka soo I buy things from my farm from Rick marka dukaankaas iyo suuqaas oo beertada wax soo geli jiray baan si aad uma aqaanin there were a lot of people waxaa jooga dad badan in the post office meesha post office dad badan baa jooga I asked upon money order waxaan weydiiyey meesha la yiraahdo money order a man showed me nin ayaa i tusay the queue link there was a long line waxaa jiray line dheer of people dad ah and I wait at the back gadaal ayaan istaagay dadka intiisa iga hor dhamaysanayaan haddana iga soo horreeyay waan sugay
finally ugu dambeyntii it was my turn. Waxay ahayd xilligii I was at the front of the queue. Waxaan ku jiraa leenka dadka ugu horeeya. But the official did not serve me. Laakiin dadkii meesha ka shaqeynaya imay shaqeyn. Did not serve me, imay shaqeyn. Excuse me, iga raali ahaada. I said, waxaan ku dhahay excuse me, iga raali ahaada. It's my turn, I am next. Anigu hadda waa waqtigeygii, anaana ku xigo. You are next. Adaa ku xigo. Olama. Duqa adaa ku xigaa. I'm very busy. Aad ayaan mashquulsanahay. The official side. Adaa ku xiga laakiin waa mashquulsanahay. At my papers. Look at my papers. Fiir xaashiyahayga. Look at all those people. Dadkaan dhan fiiri. I'm very busy. Aad ayaan mashquul u ahay. And you must wait. And you must wait. Waana inaad sugtaa. Marka cashirkan waa buug dhan waayo ilaa inta sheekada ka dhamaanayso. Hal page ayaan ku dareynaa. Part 2 ayaan ka dhiganaa insha Allah. Ilaa duqa lacagta inuu soo qaatay iyo inuu soo waayay iyo wax ku dhici doono. Waana short story. Marka so I wait waan sugay. Saa darteed I wait waan sugay. Finally ugu dambeyntii the official looked at me. Wuu soo fiiriyay. What do you want? Maxaa rabtaa adigu? He asked me. I give him my money order. Xaashidii warqadda wiilka uu soo diray ayuu dhiibay. Here's my money order. Tani waa warqadayda money order for 100 pounds. 100 pound ayaa ku qortay money order. Waa adoo arsidna qaata xawaaran lacag soo qaadanaya oo kale. Lacag 100 pound ayaa soo diray hal si I replied. Ka duq sawirkiisi money order meeshaas ku qoran tahay. So the official held out his hand gacanta ayuu u soo taagay. The official held out his hand identity card said wuxuu kaarka aqoonsigaaga. Excuse me, iga raali ahaada. I don't understand, I replied. Ma gasaya waxaad sheegaysiin. Your identity card. Kaarkaagii aqoonsiga. Official said again. Ninka xafiiska fadhiya mar kale ku dhahay. Give me your identity card. Si lacagta lagu siiyo ID kaarkaaga keeno. What's an identity card? War maxay tahay identity cardka sheegaysiin? I asked duqa ayaa weydiiyay. Identity card ma kaar ID camal ma. Marka baan ama passport wax ka soo noqon kara aqoonsi. oo in marka lacagaha la qaadanayo macluumaadka ku qoran yahay laga reebo yaa la yiraahdaa identity card. oo marka safar la isticmaalo yaa la yiraahdaa identity card. I can't give you any money. Ma ku siin karo wax lacag for this money order. Xaashida man oo lacag wax lacag kuma siin karo. First I must see your identity card. ugu horreyntii I must see inaad khasab inaad arko your identity card. xaashida in aad leedahay lagu caddeynaa in sool bal soo diray adam bay ku socotaa adiga ina adam tahay lagu kasaba. Your identity card gives you a name. Identity card wuxuu siinaa your name and your address. Your address card meesha degantaa. Your identity card describe you ad ayuu ka hadlayaa. There is a photograph. Sawirkaaga ayaa ku dhagan. Photograph of you. Sawirkaaga ayaa ku dhagan in your identity card. I don't know you. Kuma kasaayo. Who are you qofka tahay? The official was little angry. Ninkii xafiiska fadhiyay uu xanaaqay wax yar buu xanaaqay. Who are you? La duq isaayir moogta ana waxa sheegaysan marka saayir dhamo. Kan uu ku xanaaqay. Nan mashquul badan ku joogaa. The official was little angry. wax yar ayuu ku xanaaqay. hal page ayaan ku dareynaa insha Allah part 2 ayaan ka dhigin doonaa qaybta kale. But laakiin I was also angry. Asaga uu xanaaqay anigana waan xanaaqay. Who am I? Aniyaan ahawda. I said everyone knows me qofka soo garanaa. I am Adam. Ana waxaan ahay Adam of the village of Minta. Duqa xaafadda Minta la. Adam degan baan Adam la. I haven't got an identity card. Identity card weligii ma helin buda. And I don't need umana baahan an identity card. Olama ninkii marka xafiiska fadhiyo olama duq. I am very busy. Ana mashquul ayaan. Aniga very stupid. Adiga stupid at. The official side. ninkii xafiiska fadhiya. Who are you yaa tahay? Where is Minta? Minta xaqiiqda.
marka insha allah inta kale baato ayaan ka dhigan doonaa bal duq inuu lacagta heli karo insha allah channelka subscribe saar akhyaaray waa iska soo xogo casharada way naga yar kala fogaadeen laakiin insha allah cashar badan oo soo wada assalaamu calaykum